سؤال. xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland toddobaadkii dhaweyd dalalka saaxiibada la ah ama beesha caalamka ee Soomaaliya saaxiibada la waxay sheegeen in ay ka dalbanayaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inay sameeyaan sharciyada ay ku galayaan doorashada xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya arrintaas oo u gud ku ah Soomaaliya nafteeda iyo Somaliland ka xildhibaan ahaan بسم الله الرحمن الرحيم. horta beesha caalamku dee Somaliland way taqaanaa waana ka warhaysaa dowladnimadeeda iyo goonistaageeda iyo xilliga ay ku dhawaaqday iyo muwaadiniinta ay ku dhaqantay intaba maanta wax beesha caalamka loo sheegaya maaha waana inagula shaqeeyaan oo beesha caalamka xidhiidh fiican ayaynu ka leenahay arrimaha siyaasadda iyo horumarinta intaba arrintaas aad imika aad sheegayso waxaan u arkaa uun arrin siyaasadeed oo saameynta ay Somaliland ku yeelanaysaa ay aad isaga kooban tahay waayo Somaliland goonistaageedu wax maaragtay xubno meel tegey oo shaqo tegey ay wax yeeli karayaan ama wax u dhimi karayaan ama culays ay siyaasadeed ku keeni karayaan ma jirto awalba way tegi jireen oo xildhibaanadaasi dee xildhibaanada shaqo tagay oo ama madaxda xagga hadda joogta ay niman odayaalo iskoodu shaqo tagin bay ahaayeen wax culays la taaban karo siyaasadeed Somaliland ku hayna ma jirto iminkana qaabka ay ku imanayaan dee waa iska uun formality iyaga waa hawl u taala sida dee xubnaha intay siinayaan iyo intay keenayaan iyo meeshay ka keenayaan habkay u keensanayaan laakiin wax saameyn siyaasadeed ahoo nooc kasta oo ay ku keenaan xubnahaasi Somaliland ka soo jeeda baarlamaanka Soomaaliya ay Somaliland wax yeeli kartaa ama wax u dhimi kartaa ma jirto marka waxaan u arkaa un arrin aan muctabar badan lahayn oo aan magaranaysaa in la weyneeyo oo kor loo qaado aan ahayn waxaan kula talin lahaa anuu ra'yi ahaana aan qabaa xubnaha imikaba dee jooga ee la leeyahay Somaliland bay matalayaan Somaliland dee meel ay ku diratay oo ay go'aan ku gaadhay oo ay ku matalayaan ma jirto laakiin dowladda Soomaaliya iyo iyagunba isla qaatay dee inay matalayaan Somaliland taasina dee maaha go'aan lagu shaqayn karayo ama Somaliland iyo dee xiriirka Soomaaliya ka dhexeeya wanaajinaysa ama wada hadalkeedaba wax ku tukurinaysa waxaan soo oran lahaa kuwa imika jooga ama kuwa soo socda iman doonaba waxa idin fiican in mar walba ahaataan kuwa laabtooda ay ku qoran tahay wadaniyadoodu dalkooda jecel Somaliland goonistaageeda dowladnimadeeda iyo hirgelinteeda sida beesha caalamka uga mid noqon lahayd ka shaqeeya inay noqdaan oo aanay noqonin niman iyagu ikhtiyaarkoodu intay isaga shaqo tageen halkaa joogo oo ka shaqaysta waxa u magacayo sumcad iyo karaamaba fiican oo kula talin lahaa kuwa imika jooga iyo kuwa kale la leeyahay qaabka ay ku iman lahaayeen baa laga fikirayaaba inay noqdaan kuwa isu xil saara oo madaxooda geliya inaanay ahayn shakhsiyaad iska joogo oo mushahar ku qaata meeshan ay joogaan mabda'a Somalilandnimada iyo dowladnimadeeda iyo goonisitaageeda iyo jiritaankeeda sida beesha caalamka uga mid ka noqon lahayd inay taa ka shaqeeyaan ayaa uga qurux badan lahayd iyaga waayo imika qaabka ay ku joogaan ay leeyihiin Somaliland matalayna dee waa qaab la isla wada ogyahay inaanay waxba ka jirin Somaliland aanay diranin Somaliland ay matalayaan aanay jirin waxa weeyaan haddii ay taa samayn lahaayeen oo ay ahaan lahaayeen xubno u dooda wada hadalkii Soomaaliya iyo Somaliland sidii dariiqiisii saxda ah u qabsan lahaa isla markaana Somaliland daacad u ah oo gol dowladnimadeeda iyo madax banaanideeda iyo sida beesha caalamka uga mid noqon lahayd karaamay yeelan kari lahayn oo magac bay yeelan lahayn marka waxaan kula talin lahaa un inta joogtay imika iyo inta kale la leeyahay way imanaysaa iyo qaabkii ay u imanayeen baa laga fikirayaaba mabda'iinu ha ahaado waddanka u dhalateen sidii uu beesha caalamka uga mid noqon lahaa
lagu qaban karo oo sidoo kalena arrintaa ugu soo jeedinay kala shaqeeyaan golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyo shacabkaba weli xeerkii doorashooyinka waxaa ku hor yaalla golaha wakiilada qayb ka mid a caqabadaha hortaagan doorashooyinka ka mid ah sideeda markaas suuragal noqonaysaa in doorasho la galo iyadoo xeerkii weli haddaan horta dee doorashadu waxa weeyaan waa wax daruuriyo loo baahan yahay inay dalka ka qabsoonto qaabka ay u qabsoomayso iyo shuruucdeeda iyo nidaamkeeda qaabka loo dhammaystirayaana waa procedure dee aynu leenahay oo jiro weeye marka madaxweynuhu dee uu ku saxsan yahay inuu dardargeliyo oo uu ku dhiirigeliyo bulshada reer somaliland iyo baarlamaankaba iyo xeerdejinta dalkaba sidii dalka doorasho ugu qaban lahayd in la dardargeliyo laakiin waxa muuqata oo iyaduna meesha taalla oo aan la dafiri karin muranka siyaasadeedee ka dhex jira xisbiyada iyo qaabka commissionka iminka jooga loola macaamilayo inay caqabad ku tahay hanaankii geedi socodka ee dimuqraadiyadda ee somaliland ta xalka u baahan waa ta xeerka ma aha xeerku waa wax fudud wax golayaasha xeerdejinta u yaalla waa wax qaabka loo dhigayo marka lagu heshiiyo kalfadhi gudihii ku dhammaystirmi karaya oo kaga bixi karaya labada aqal ee wakiilada iyo guurtida laakiin mabaadi'da ka horeysa ee asaasiga ah ee ka waaweyn in la isla qaato xisbiyadu salka dhulka u dhigaan oo nidaamka dimuqraadiyadeedna meel aan lagaga dhicine dowladnimadeenu ay ku soo jirtay isla markaana hanaankii wada tashi ee horeba u jiri jiray lagu dhaqmo oo dib la isugu noqdo oo wax meel la isla dhigo ayay ku qabsoomi karaysaa doorashadu ta doorashadu way ku qabsoomi karaysaa waa taa weeye ta madaxweynuhu ugu baaqaya maxaa la dhahaa xubnaha golayaasha qaranka iyo bulsho weynta reer somalilandna waa taa weeye marka waxay u baahan nahay inay asxaabta siyaasadeed ay dedejiyaan oo ay dhammaystiraan sidii doorasho hufan ay isula qaadan lahaa inay dalka ka qabsoonto taasay ku iman karaysaa in doorasho dalka kaga qabsoonto middi ku taagta iyo arrimahaasina dee laga baxo iyo waxyaaba siyaasadda la kala jiidanayo marka arrinta xeerku waa wax iska kooban oo golaha halkal fadhi ayay kaga gudbi kartaa marka wax culays oo xaggaasi ma jiraan laakiin xagga culays ka jira waxa weeyaan dhanka asxaabta siyaasadda iyo saddexda xisbi qaran iyo komishinkii u garnaqi lahaa taasoo u baahan markaa in gacmaha laysla qabsado meelna laysla dhigo xildhibaan su-aal baan ku weydiinayaa maamul goboleedka galmudug saaka waxaa laga taagay ama caabud waa calamada maamul goboleedyada ah oo ay ku jirto somaliland ka xildhibaanadan adigu sidee u aragta dee horta waxaas waa iska uun dee nin meel iska xaadxaadho iska fadhiyo oo iyagiiba is haystaan oo 10 nooc isu haystaan caalankaaga hadduu meel ka taagay dee wax maaragtay muctabirahoo ay u leedahay ma jirto haddii caqligooda isleeyihiin mara meel laga taagay bay somaliland kaga mid noqonaysaa maamul goboleedyada soomaaliyana waa iska riyoonayaan riyay ku jiraan waxay yeeli karayaanna ma jirto somalilandna calankeedu de waxa weeyaan karaamo iyo sharaf buu leeyahay inay ixtiraamaanba ayaa ka qurux badan inay iyagu maxaan ku dhahdaa siday doonaan u isticmaalaan ama siday doonaan ay usoo dhigaan